Soomaaliya Soomaali baale Soomaaliya Soomaali baale guuleysta ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ee galmudug ka howlgala ayaa guulo waaweyn ka soo hooyay howlgal muddo ka badan 2 toddobaad ka socda deegaanada bari ee gobolka mudug kuwaas oo saacad walba ku sii siqaya deegaano iyo degmooyin hor leh oo ay muddo dheer argagixisadu ku dhibaateynayeen dadka shacabka ah jabka kooxda argagixisada ah ayaa sii xoogaysanaya waxaana jira xubno ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab oo iska soo dhiibaya aagaga kala duwan ee dagaalku ka socdo iyo kuwa hubkooda baadiyaha ku daadinaya oo ciidamada qaranka iyo kuwa galmudug ay soo ururinayaan kuna sii raad joogaan habqankooda xoogaga qalabka sida oo ay hogaaminayaan saraakiisha sarsare oo ay ka mid yihiin taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka General Maxamed Tahliil Biixi iyo wasiirka amniga galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa haatan ku sugan aagaga dagaalka ugu culus ay ka dhacayeen maalmahan ee Qaycad Hareeri Dheere iyo aaga Bacadweyne oo dhammaantood argagixisada laga farmaroojiyay waxaana saacado ka hor saraakiisha furimaha hore xog waraysi ku saabsan hogaaminta dagaalka iyo istiraatiijiyadda ugu tagay madaxweynaha galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor howlgalkan oo ujeedadiisu tahay xoreynta deegaanada argagixisadu ku dhuumaaleysatay ee gobolka mudug ayaa durbadiiba taageeray iyo garab istaag ka helaya haldoorka bulshada